السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة واتي سدحية سقاشنات مقعدة سورة الضحى، والضحى ذا هو الرئيس يكون مقعبانتهاي، وسورة مكية، وانت رسولك مكا كنولا أي سودكتي آياده دوكوي تموي. والضحى سيوها ذا شيء وسورة مكية، وحي تابتي رسولك عليه الصلاة والسلام. شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سورة قادة ديكتي يوعى رب رسولك سكوك الله دايستي، والنعمة الدنيا من آخرها ولا حسوسيي si uu rabbi uga mahdiyo nicmooyinka waaweyn ee dushiisa lagu tubay ee mid adduuniya mid aakhiraba leh. kolkaa rasuulkay daba kacday suuradatan waxay ka bilowday warkeeda qiimiga badan inay ku dhaaratay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa saddex habeen xanuunsadoon soo bixin. islaan xun oo adeerkii qabo umu jamiil la yidhaah abiilaha baa qabay ayaa intay u timid tiri kibir ula timid rasuulka oo tiri yaa maxamed ma araa shaydaanaka ilaa waqad tarakaka. shaydaankii ku iman jiray ilaah bay ku waday ama jibriil bay ku waday, labadan habeen laguma iman. kolkaasay tiri waa lagu nacay, dicaayad baa suuqaa lagu orday oo li kii maxamed aha ee reeraha oo dhan ka dhex baxay la nacayay wixii u iman jiray way naceeno intaasaan loo iman wey. kolka rabbi intuu dhaar xagaf ku siiyuu yidhi alla ilaah inaanan ku sagootinin kuna nicin ee been bay sheegan wey. kolkaasaa rasuulka waxyaalo badan oo loogu talagalay rabbi tiriyey. kolkaasaa deeqdii aan koobmi karin ee rasuulka loogu talagalay loo sheegay. markaasaa yaraantiisa wixii dhibaato uu soo maray iyo intuu yara intaa in lagu soo dhaqaalayn jiray. alam yajidka yatiiman fa awa wawajadaka daalan fahada wawajadaka caa'ilan fa agna. saddexda abaal oo loo galo yaraantiisii loogu galay inta loo sheegayba saddex tawsiye oo waaweyn. haddana la iska jir saddexdaas: ama saa'ila falaa tanhar, fa ama alyatiima falaa taqhar, wa ama saa'ila falaa tanhar, wa ama binicmati rabbika faxadis. waa saddex iyo saddex. alam yajidka yatiiman fa awa wawajadaka daalan fahada wawajadaka caa'ilan fa agna. saddexdaasaa lagu sameeyey. kolka saddexda tan qaadoo dardaarana: ama alyatiima falaa taqhar, wa ama saa'ila falaa tanhar, wa ama binicmati rabbika faxadis wey. suuraddii oo bilaabatay waatana. abda-u haadihi suura, waxaan suuraddatan ku bilaabayaa bismi illah, alla magicii cuskashadii, allihii arraxmaan naxariisgooda addoommadiisa wada gaarta naxariista, arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi subxaanah, wadduxaa baan ku dhaartay barqinka. sababu nusuulku sidaa aynu sheegnay bay ahay. xadiidkeedana muslim iyo bukhaari baa warinaya. magaca islaamta kuma jiro, laakiin rasuulka inuu xanuunsaday laba habeen ama saddex habeen oy naagtaa kibirka ula timid oo marka ay suuraddu timid muslim iyo bukhaari baa wariyey. rabbi wuxuu yidhi wadduxaa barqinkaan ku dhaartay. iftiinkaa weyne ummaddu soo kacdee lasoo wada kaakacaan ku dhaartay. waleyli habeenkii baan ku dhaartay. idaa saja haddii habeenka uu xasilo dunida qabsado wey. idaa saja habeenka haddii dunida uu qabsado mugdigiisa iyo culayskiisa iyo haybadiisa uu ku fidiyo adduunka. idaa saja hadduu ku fido dunida ee maa wadacaka kuma sagootin muxamedow rabbuka, rabbigaa kuma uusan sagootin, wama qalaa kumana caroonin wey. ee waxa ay sheegeen been bay ku sheegeen wey. marka la anfiyey buuqoodiiyo beentiiyo dicaayaddii ee ilaah yidhi maa wadacaka, weliba uu dhaar ku anfiyey maa wadacaka rabbuka wamaa qala, alla kumana caroon kumana sagootin. yaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii loogu talagalay aakhiro jiray oo aan la koobi karin rabbi u sheegay. fa qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi walal aakhiratu, aakhirada dambaysa khayrun kuu wanaag badan laka adiga muxameda min alulaa adduunyada. oo haddii aad wax qoonsimaada kala kulanta adduunyada, ama xanuunkaa ku qabanaya, ama hadalxumada kugu dhacaysa, ama waxaa la sheegaayo o dhan ha qiimayn. meeshani meel ku qaadaa ma aha, waxa lagugu talagalay baana ka weyn. kolkaa tan iyo wixii kugu qabsada. kolkaa rasuulka taasuu gawska dhigay calayhi salaatu wasalaam, oo iyadoo jihaad lagu jiro oo jid dheer la hayo oo geed la hargalay oo intuu gobol qallafsan ku seexday jirkiisii ay saamaysay. asxaabtu ay tidhi yaa rasuulallah, intii aad dhinaca dhigtoo jilicsanoo suufa maanu ku samayno. ayuu yidhi ma aniga adduunya wax ka dhexeeyaan? waxaan la mid ahay nin geed hargaloo ka tegey unbaan la mid ahay. kolkaas sidee aniga haddeer firaashii waxa igu samaysaan wey. kolkaasaa rabbi yidhi subxaanah walal aakhiratu, aakhirada dambaysa
خير في عنان بدن لك هذه رسولك من الأولى الدنيا أي كذا في عن تيو يقولك الدنيا يوحي كوسا قارها قيمين قولك أسهر ربي وحا آخر الله قلت لك على رسولك وشيغي ولا سوف دب دنبا يعطيك أوكسين دونا ربك أذيك ربك وحوين بالغسين دونا أو فتر لا أذيك برالي أهان دونا أذيك برالي أهان دونا قال كان رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الذي أرنجري وحاكم له اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إله وحن الدنيا نرى معها نرى القيمة لحقا سيجيرتا وصدق الله إذ يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو واللعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون كل كاسا ربي ولا سوف دب دنبا يعطيك ربك وحوين كسين دونايو فترلا كل كاسا رالي نقونيس كل كا يعطيك ربك محال سين دونا أبا المرنت إيا كرامة إيا شفاعة هذا وحي بالله هذا الأيام ملك حباله وحكسه بحكو إساقا وهرية وحجنة الباب كذا فرا إساقا وهرية إيشو مركا يديبتين لا يسكن مرينو مقام المحمود إساقا شفاعة العظمى له كل كا إساقا فرايا كل كا وحا لغوسين دونا وحا لكوبي كرامة حديث با عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وريي وأوليه تنوف سرايي وشفاعة وي كل كا رسولك عليه الصلاة والسلام واللهم أمتي له وأين هي أصحابته أدولان كجرت الله أركي كل كا ربي جبريل صدرود وحيري أتق محمد وحاترا ما يبكيك ملك جبريل با يمد إلى واكو صو سلام يا وحكاوه يشاق بو كليه مركاسو يري أمد إذا مركاسا ربي يري إنا سنرضيك في أمتك أمد هذا حق هذا مبسوط بأنه كان لقينا هؤلاء وي مركاسا شاعرك حكيم كهايري قرأنا في الضحى ولا سوف يرضى سورة الضحى بأنه كأخرني ولا سوف يرضى فصر قلوبنا ذاك العطاو يعطيك ذا اللي هيبا اللابت الذي فرحيه بوي ووحوين وي وحاشا يا رسول الله ترضى بوي خالي النقل ميتد وفينا من يعذب أو يصاب بوي أنك أمد هذا هين وقاركنا الله بقوجنا جوالا برهالي نقني قرأنا في الضحى ولا سوف يرضى فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يصاب ولا سوف دبدا با يعطيك ربك كسين دونا الله يقان لما شيء كريم وفتر الله وادخال هانس كل كي الحقنا لوغا ورمي آخرة خوص لك صوب بالله بين نلسيسي وحا ربي سبحانه ألم يجدك موار الإباكو هلين يتيما أدقو أغونا on aabalahayn oo faawa eeba uusan ku dumin isagoo caloosha habartii 3 bilood ku jira hadii dhintay habartii way dhashay isagoo lixjira ayay dhimatay awowgii baa gacanta ku qabtay awowgii baa ku qabtay Abdul Muttalib isagoo 8 jira ayuu dhintay marka uu 8 jiray baa waxa qabtay oday adeerku Abi Talib la yira ila risaaladu soo gaaray oo waa weynaaday ilmihiisu ka jecla marka faawa ilaahbaa ku dumayo adoon aabiyo hooyo ku dhaqaalaysta qabinba umad kale alla ku dumo waliga lagu ururin jiray kolka ilaa waaga saaba lagu la socday alam yajidka mawusan eebaha ku helin yatiiman adoo agoona oo faawa uu rabbi ku dumin oo ku ururinin xagee dhibaato ku aragtay taa marka muqaabal waxa huwa fa amal yatiima fala taqhar inta adiga aad noo shay wilaayadaadu dhisan tahay agoon la gaaro la majuujiyo xoolo la qaado la xaqiro la duleeyo yayantaa dhicin talabaada loogu abaal sheegtay wawajadaka mawaanan eebba ku helin waalan adigoo nubuwo iyo diin iyo shariica midna haysanin oo fahada eebba uusan ku hanuuninin see ilaah baa kuu carooday lagu dhihi karaya adoo dadka lamida oo aan diin iyo risaale iyo waxba ogeyn ama anta calayhi al'aan ayaaba nabi lagaa dhigo rasuul lagaa dhigo waxay lagu dejiyo wax lagu baro lagu doortay ilaah baa kuu carooday see lagu oran karayo kol haddii sidaa adigana lagu hanuuniyey adigana markaa wa hanuuni wawajadaka mawaan eebba ku helin mar saddexaad caa'ilan adigoo faqiira oo fa aqnaa rabbi hodankaa dhigin oo qanaaca iyo sabar iyo iimaan iyo xataa maal naftiisa ma waan rabbi wax walba ku siinin wey adiga adduunyada ka cararaayey kol haddii rabbi adigoo cayra ku soo dhaqaaleeyeyna wa ama saa'ila falaa tanhar kaa dawarsanayo weligaa ha guulguulin allaha kuu sahlade waxaad u dhiibi kartaana u dhiib wey kolkaas saddexdaas yaa lagu abaal sheegtay wawajadaka daalan bacdulmufasiriin baa qaba isagoo yar inuu ku baxsaday meel gola oo uu cidda garab maray oo marka ay kuwa caasiyaala soo qaadeen markii dambe u darra
وليد بن مغيرة كانوا يري يتيم أبي طالب بانكي أقولك أبي طالب وهايي وبحث عن ما أنت سوق هذا كل كوحوي أما تاسكو فصير أمة لبدا معنى بواكينيسا وامتناع رسولك الله قال الله يستي ألم يجيدك ووان إباها كهلي وأو كهلي يتيما أدو أقونا وان أبالهي وفأوى وسن ربي كونك إيا دوني أدونك ودن وسن كودو منه مر لغو ديبي أووغا إيا مر لغو ديبي إيا حتى مركو يراي بني سعد وكسو النوغي نالوالبا مكرم معززة والله قيمة عدي أركتبا جعلاتوها ووجدك موان إبا كهلي ضالا أدون ديني يا شريعة مدن هايسن وفهد إلى أوسن كهانونينو رسول نبي الله قادقين ووجدك موان إبا كهلي عائن أدو فرمدو وفاغنا خدو هذا أوسن كادقينو قناعية صبر يا ربي كوكو هدميي فأمر يتيمة أقونك فلا تقهر هقول قولينو هقهرين وأما السائلة كان دورسنا يتوقت مايانا فلا تنهر عنانني كاسمها قهرين كانها عنانا أما اليتيم أقونك فلا تقهر أدونك قصب ووادباتدي مشركين أي أدومدك هايسي ينكوا كودعين وقهر دنبيا بعيد إيا حقيرين لحقيرو إيا جلو الدنبيان أقونت اللوغون نقوي وأما سائلك دورسنا يانا فلا تنهر ههورين وهقولقولن وهعنانين وحا تري كرتاتر هذا الوحو إلانا قول سنكو أنبا بحي وأما بنعمة ربك حرى اللقو عروضية سقوتي اللقو سقوتي مجرته وحن ربك هو قال له يستيبر واقع النعمة الدنيا من آخرة له وحنا رئيسا وحنا اللقو يبوهي قال لكم هذه واركوذنا كبحوه warkoodana ka bax waa ama binicmati rabbika rabbigaa wuxuu kugu barwaaqeeyey oo aan la tirin karin oo nicmatu dunya walaakhirati ah oo adduunyadii rasuul nabigaa lagaa dhigay afdalulkhalqi baa lagaa dhigay kolkaa darajo ka sarraysaa male aakhirana adigaaba shaafic mushafaca awal shaafic wa awal mushafac kolkaa nicmo adduuniya mid aakhiro wax kuu dhiman male ee alxamdulilaahi undhe wa ama binicmati rabbika rabbigaa barwaaqada uu kugu barwaaqeeyey ees kugu galladaystay مد آخرية مد أدون بله فحدث خبرك أشيغو مهديو شيغو الحمد لله دهوت والله سبحانه وتعالى أعلم.